Hi guys, assalaamu calaykum. Waa aniga Cabdifataax Ibraahima. Halkaad nagala socotaana waxaa weeye Somaltech. Intayna cashirka u gudgadin, waxaan ka codsanahaa inaad channelka aad heetay markii ugu horeysa soo booqato, aad subscribe saarto, kadibna aad furato jariska aad kadibna all ka dhigato notificationka si kusoo gaadhaan cashirkan sameyno mar walba. Okay. Maanta waxaan ka hadli doonaa casharada xiriirka ahaa ee ku saabsanaa Linuxka. Waxaan maanta eegi doonaa cashar kale oo aad u muhiim ah oo ka hadli doona permissionska ama file permissionska iyo directorieska qaabka permissionskooda loo siinayo. Okay, permissionsku waxa weeye qaabaad u adkeysanaysa xogtaada. Macnaha haddii imka user aad tahay oo aad leedahay file ama aad leedahay directory si aad ugu noqon karayo macnaha permissionskiisa aad wax uga bedeli karayso, macnaha dadka access gareynaya ama dadka isticmaalaya aad permission gaara siinayso, macnaha waxna waad u ogolaanaysaa waxna waad ka diidaysaa. Okay, xaggan sidaad ka arkaysid waxaa inoo yaala permission groupiska, macnaha permissionsku qaabka uu noqonayo. Okay, permissionsku waxa weeye ownerka, macnaha waa userka leh fileka ama directoryga ayuunbaa access gareyn karaya ama permissionska ku apply gareyn karaya, macnaha waa ownershipkii bay sheegaysaa. Sidoo kale waxaa jira wax loo yaqaano group permissionski, deetana qofka groupkaaga uu ka tirsan yahay oo kaliya ama groupka cidda haysata ayuunbaa permissionska wax ka bedeli karaysa oo ku apply gareyn karaysa oo impact ama saameyn ku yeelan karaysa. Okay, waxaa loo yaqaana all userska oo permissionska iyaguna waxay ku saameynayaan ama waxa loo yaqaana others, macnaha wixii aan groupka ama userka ku jirin others baa la odhanaya. Marka otherska ama all userskaas oo kale ayaa dhammaan wixii others ahna permissionkooda wax ka bedelaya ku saameynaya. Okay, haddaba permission typesku muxuu noqdaa? Permission typesku waa RWX wax loo yaqaano. Xaggan saad ka arkaysid waxaa jirta read filekaaga wax ku qoran yahay adoo userkaaga waxbaad ku qoratay fileka waxaad doonaysaa wixii ku jira haddii ay akhrin noqoto inaad adigu keliyata unaad akhrin karaysid ama aad cid kale aad u ogolaan karaysid. Marka permissionska la siiyo waxaa ugu horeeya read, shaygii in la dhex geli karayo wax laga akhrin karayo. Okay, permissionka ku xiga waxa weeye write. Write-ku xaggan wuxuu ugu jiraa in aad macluumaadkii fileka ku jiray waxna ka bedeli karayso waxna aad ka reebi karayso, macnaha modification inaad ku samayn karayso iyo deletion labadaba. Okay, in waxna ka saari karayso waxna ku soo darayso ayaa write-ka loo yaqaana marka la joogo Linuxka. Okay, executionkii baa jira. Execution ama execute permissionku wuxuu userka u saamaxayaa in uu execute karayo filekii ama uu arko fileka contentska ama directoryga wixii ku jiray ayuu kuu sheegaya. Marka executionku waa nooca filekii inaad aragto waxyaabaha ku dhex jira iyo waxa uu contentskiisu ay yihiin ayuu noqonayaa. Okay, xaggan sidaad ka arkaysid waxaa jira waxa loo yaqaano RWX iyo RWX. Okay, xaggan sidaad ka arkaysid saddexda digit ee ugu horeeya RWX ay ku qoran tahay waxaa loo represent gareeyaa in uu yahay ownershipkii uu sheegaya, macnaha oo macnaha waa userkii. Okay, saddexda character ee ku xigaan waxay sheegayaan group permissionkii. Okay, sidoo kale saddexda ugu dambeeyana waxay sheegayaan all user permissionkii ama other permissionskii. Okay, marka maanta waxaan eegaynay waxaad arki doontaa hadhow sababtan hadda u sharaxayno permissionsku inay wax jira uu yahay oo saddexda qaab ay noqonayaan permissionsku user permission ama user ownership iyo group ownership iyo otherkii oo noqonaya. Marka permissionkana wuxuu ku saamaxayaa in aad macluumaadkaagii ama filekaagii ama directory markaan leenahay waxaynu ka wadnaa macnaha folderka marka la joogo Linuxka waxaa loo yaqaanaa directory. Okay, hadhow waxaa laga yaabaa inaan anigu ku sharaxin
file iyo directory waxay ku kala duwan yihiin. haddii tusaale ahaan oo kale aad doonaysid inaad ogaato, let's see hal example baynu eegi doonaa oo ku saabsan maxay ahayd waxaa loo yaqaano directorieska. okay, waxaan samayn doonaa iminka tusaale ahaan oo kale waxaan doonayaa waxa ii samaysan shaya ii samaysan, waxay samaysan cali iyo xasan oo kale ay samaysan iminka. marka waxaan doonayaa directory, let's say aan sameeyo file modern oo loo yaqaano isagana muuse oo kale. okay, hada soo rangaree waxay samaysan laba folder iyo maxay hayday hal file. marka waxaan doonayaa fileka inaad ogaatid fileko iyo folderku ama directorygu wax ku kala duwan yahay. okay, ls baan odhanayaa hyphen l oo kale. okay, xaggan waxaad ku arkaysaa directoryga waxa ugu horeeya waxa loo yaqaana d. okay, permissionska hadda aynu ka sheegaynay waxaad arkaysaa halkaa inay ku qorayn rwx rwx. halkaa waxa ka maqan waa otherskii, macnaha wixii aan user kan ahayn iyo groupkan. waayo waxaanu nidhi group kasta user kasta wuxuu leeyahay group. haddii aanad u samayn macnaha group aanad gelin automatically waxa u samaysmaya oo la degaya group magaciisa ku samaysan. macnaha imika waxaad samaysay user loo yaqaano axmed. userka axmed ee samaysay waxa la degaya group loo yaqaano axmed magaciisa. marka waa qasab in uu user kasta oo Linux operating systemka ku jira uu lahaado group member inuu ama membership inuu lahaado meel uu ka tirsan yahay. waxa weeye compulsory, waa qasab macnaha. okay, marka waxaad ogaanaysaa otherska iminka qaybta raadka ma leh. qaybta raadka waan ku soo dari karaynaa permissionska markaanu samaynayno. okay, marka maanta waan sharaxaynaa permissionska waxay yihiin. sidoo kale markaan commandka samaynayno waan sharaxaynaa. marka iminka xaggan waxaad ku aragtaa directory ku aragtaa, macnaha dhiidan waxay u taagan tahay directory, shaygan macnaha waa folder. okay, halkan ka ku xiga waxaad arkaysaa oo muuse inoo ah maxay ahayd xasan, iyo ka kale inoo ah maxay ahayd muuse, inay labaduba inoo yihiin maxay ahayd wax loo yaqaano folders, waxaan leeyahay files inay inoo yihiin. okay, marka calaamada dashka waxay ku sheegaysaa shaygan inuu yahay file ayay ku sheegaysaa. haddii wuxuu od ka horeysana waxay ku sheegaysaa calaamadan inuu shaygan uu yahay directory. marka labada shay waxaan u soo qaadan kugu tusay inaad kala ogaan karaysid shayga wixii file ku ah iyo wixii directory ku ama folder ku ah. okay, cashirkeeni aan dib ugu noqono. sidoo kale xaggan halka markaad ka arkaysid waxaan eegi doonaa example muhiim ah oo isaguna xaggan inoo yaala. waxaa loo represent gareeyay wax loo yaqaano binarieska. binariesku waxa weeye waa shayga uu fahmo computerkaagu ma fahmayo xarfahan aad qoraysid kaliya, wuxuu fahmaya wax loo yaqaano binaries system oo noqonaya zeros iyo ones bay ku noqonayaan. okay, marka shay kasta waxaa loo bedelayaa 0 iyo 1 baa loo bedelayaa. okay, haddaba waxaa jirta marmarka qaar inaad qorto code ama command loo yaqaano, let's say aad tiraahdo tusaale ahaan oo kale commandka xaggan ku yaala inaad tiraahdo gmod 644 oo kale wuxuu u taagan yahay waa binary. macnaha permissionka xaggan inoo yaala ayuu u taagan yahay dash rw dash r dash ayuu taagan yahay. okay, marka shaygaas waxa loo bedelayaa binary sideebaad ugu bedelaysaa. binary waxaad ugu bedelaysaa meel kasta oo dash ku taagan waxaad siinaysaa 0 baad siinaysaa, calaamada 0 gaad meel kasta oo dash ku tahay aad siinaysaa. okay, xagga saad ka arkaysid waxay noo soo baxday shayadan bay noo soo baxay, macnaha binary formkan bay noo soo baxay. binary formkan waxaad isku raacinaysaa 3 sababtan 3 isku raacinayso waxa weeye wixii aanu ka soo hadalnay aanu sheegnay oo inoo noqonayay owner userkii maxay ahayd groupkii iyo maxay otherskii ay saddexdooda inoo kala noqonayaan. okay, marka saddexda ugu horeeya permissionkaas waa userkii, waa user ownershipkii ama user permissionkii, group permissionkii iyo otherskii. okay, marka 644 sida bay ku yeelatay haddii aad binaries ka dhigatay ama binary system ka dhigatay
and this one is gonna be easy for you waxay ku noqonaysaa mid aad soo simple ay ku noqonaysaa markaad garanaysid basica binarieska base 2 bay noqonaysaa okay marka saddex baan isku raacini marka 210 macnaheedu waxa weeye waa 4 waxaad ku mid kasta meel kasta halka tusaale kale 0 waxaad dul saaraysaa 2 power 0 baad ka bilaabi 2 power 1 and 2 power 2 markasta waxaad xisaabinaysaa tirooyinka one-iska ah ayuunbaad isku keenaysaa okay marka 2 power 0 0 ga hore waa 2 power 0 0 ga labaad waa 2 power 1 and 1 kan waa 2 power 2 macnaha waa 4 2 power 2 waa 4 4 ka koobaad xaggaas buu ka soo baxayaa marka xaggan baad ka soo bilaabaysaa okay kana waa la mid waa 4 kana waa la mid macnaha waa 2 power 0 okay waa 0 isaga xisaabin mayno maadaama uu 0 uu basekiisu uu yahay kana waxa weeye waa 2 power 1 macnaha waa 2 kan ku xigana waa 2 power 2 2 power 2 ayuu noqonayaa kan ku xigana marka 2 power 2 waxa weeye waa 4 2 power 1 na waa maxay waa 2 halkaas buu ka soo baxay labadoodaas oo la isku geeyay ayuu ka soo baxay 6 marka qaabkaas aad u xisaabinaysaa okay marka insha Allah waan qaadan doonaa koorsaad ka hadli doona binary systemku waxa uu yahay iyo waxa uu sheegay insha Allah taala mustaqbalka waan eegi doonaa marka imika waxaan u soo qaadanay in qaar binary-sa aad ku xisaabin karaysid maxay heeday permissionskaaga maanta cashirkeenu waxaan overview ka qaadanaynay permissionska marka la joogo Linux-ka file-ka iyo directory-ga qaabka ay u shaqeeyaan marka cashirkeenu maanta intaas buu inoogu ekaanayaa inta cashirkan ku xiga ku kulmi doona insha Allah taala waxaan iskaga tagi doonaa sidaas iyo nabadgelyo